بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galo munaasabadan wanaagsan ee qoyska islaamka lagu aasaasayo iyo xafladan arooska ah ee ka dhacaysa qolka walaalaha albanaatu tayibaat. insha allahu tacaala muxaadaradeenu waxay ku saabsan tahay guurka fawaa'idda uu leeyahay iyo tusaalayaal fara badan oo aan soo qaadan doono sidii soo aroortay ee loogu hambalyeynayo labada qof ee isguursanaya, jacaylka oo labada qof laga doonayo shareecadu ay amartay. insha allahu tacaala waa muxaadaro dhinacyo fara badan taabanaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu anfaco kuwii qaata oo ku waansama oo ku dhaqmana allaha naga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay asagoo nooga warramaya guurka: wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxmah inna fi dhalika la aayaatin liqawmin yatafakkaruun. sadaqa allahu alcadiim. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlay guurka inuu yahay aayadaha ilaahay ee kowniga ah ee waaweyn ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala jideeyey qayb ka mid ah. markaas ayuu ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu idiin sameeyey oo idiin abuuray xaasas, naftiinnana uu inkaga abuuray. lakum kelimadaas carabiga waxay ku dhacaysaa oo lala hadlayaa raggii. haddii oo ay ku dhici lahayd dumar, lakunna ayaa la dhihi lahaa. marka ilaahay adinka ragga wuxuu idiin abuuruu ilaahay leeyahay oo naftiinna inkaga abuuray xaasas, litaskunuu ilayha, si aad ugu soo xasishaan, ugu soo hoyataan, ugu soo nasiino tagtaan daalkii iyo tacabkii uu agtooda inkaga baaba'o. wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma, ilaahay dhexdiinnana wuxuu dhigay kalkacayl, jacayl iyo naxariis. taasna wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa aayadaha ilaahay qayb ka mid ah oo lagu cibro qaadanayo, waxaana aayadahaas ku waansamaya oo ku cibro qaadanaya dadka fakaraya oo maskaxdooda ka shaqaynaya. marka ilaahay markuu sheegay inuu xaasas u abuuray raggii, laba ciladood ayuu daba dhigay. midda koowaad waxa weeye waa isu soo xasilidii iyo sukuunkii oo ka mid ah faa'iidooyinka guurku uu leeyahay. midda labaadna jacaylkii iyo naxariistii ayay ku saabsan tahay. marka waxaan doonaynaa marka hore inaan ka hadalno faa'iidooyinka ama fawaa'idda uu guurku leeyahay. guurku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad iyo aad u fara badan oo qaybi ay adduunyada la helayo, qaybna aakhiro la helayo. wuxuu leeyahay manaafic iyo dheef fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guurka ummadda ka siiyey. waxa loo jideeyeyna waa khayr adduunyada iyo aakhiro intaba ku jira.
midda koowaad guurka faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah alcimraan alkowni bitanaasul wa takhiiri alummati almuxamadiya. guurku waxa weeye waa camiraad koonkan la camirayo laguna camirayo tarankii iyo isdhaliddii ayaa koonkan lagu camirayaa. maxaa yeelay adduunka qarniyo ama boqolaal sano ka hor dadka degani ma deganayn. mar kastoo ummadda ay badato adduunku waa camirmaya, mar kastoo ummaddu yaraatana adduunku ma camirna. marka isdhaliddaas iyo tarankaasi adduunkii iyo koonkii ayaa camiraysaa. haddana dhankii kale xagga islaamka waxaa ku sugan takhiiru lummati almuxamadiya. ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa badanaysa oo la badinayaa, labada guursatay ay badinayaan oo muslimiinta ah. isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam xikmaddaas muujinaya ayuu wuxuuna leeyahay tasawaju lwaduuda alwaluud fa innii mukaahirun bikum alumam. waxaad guursatiinuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam gabdhaha kalkacaylka iyo jacaylka leh. alwaduud waa gabadha jacaylka leh. gabadhaasi inay jacayl leedahay oo qof jacaylla ay tahay waxaa lagu garanayaa hooyadeed iyo dadkeeda ayaa laga ogaanayaa. ilaa marka hore waxaa dhici karta inaan la dareemin. haddana waluudo ahoo dhalaysa oo tarmaysa oo maaragtay yacni dad dhalmadii iyo lagu yaqaana ka soo jeeda. marka nebigu wuxuu milicsanayaa calayhi salaatu wasalaam badintii ummadda. fa innii mukaahirun bikum alumam. maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalinka qiyaamo ayaan inkugu faani doonaa ummadaha, oo aan leeyahay nebi kastaahi wuxuu ku faanayaa intii qof oo raacday intaasa aniga ummadayda ah ayuu leeyahay. marka maalinkaas qiyaamaan inku faani doonaa uu leeyahay. riwaayo kale wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam tanaakaxuu takhuruu fa innii ubaahii bikum alumama yowma alqiyaama. guursada waa badanaysaane anigu waxaan inkugu faanayaa ummadaha ayaan inkugu faanayaa maalinka qiyaamo oo leeyahay ummadaydii wataas. marka waxaa la doonayaa labada walaalaha ee isguursanayaahi inay niyad fiican la yimaadaan markay isguursanayaan oo ay niyaystaan in ay ummaddii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay badinayaan. waa in ay niyad fiican la yimaadaan oo guurka inuu sunno uu nebi moxamed ku raacayo yahay, inuu sunno uu ilaahay jideeyey uu yahay, inuu sunno oo maaragtay macnaha xalaashii uu ku dhowrsado, xaaraantii uu ka dhowrsado. niyaad fiican oo fara badana guurku leeyahay. waa in niyooyinkii qofku la yimaadaa. waxaa ka mid a faa'iidooyinka guurka awlaaddii qofku uu ka helayay maaragtay uu ku nuursanaya qalbigiisa, maaragtay uu asagu hadhow aakhiro iyo adduunba ku intifaacsanayay. waxaa ka mid a faa'iidooyinka guurka dadkii ayaa qaraabanimo iyo xiriir iyo xidhiidhnimo dhexdhacaysa oo laba beelood oo aan xiriir ka dhaxayn ayaa xiriir dhex maraya, markaas ayay halkaas ka qaraaboobaya. waxaa ka mid a faa'iidooyinka guurka annahu muxaafidun min alfisqi waalaafaat. guurku qofka wuxuu ka xifdinayaa oo ka ilaalinayaa fisqigii iyo dunuubtii iyo aafaadkii iyo dhibaatadii ayuu ka xifdinayaa. oo qofkii waxa weeye muuminkaa markii uu guursado wiilkii iyo gabadhiiba macsi kuma dhacayaan. maxaa yeelay shahwadii gubi laheed ee meel kale ay la aadi lahaayeen dadka iimaanka yari way ka baxaysaa. marka qofkaasi wuxuu noqonayaa diinkiisii kala barba qof ilaashaday ayuu noqonayaa. barkii kalea la rabaa inuu ilaahay uga cabsado. maxaa yeelay shahwadii dembiga ku kallifi laheed ee meel xun u jiidi laheed ayaa ka baxday.
markaas ayuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man razaqahu allahu imra'atan saalixa faqad acaanahu calaa shatri diinih falyattaqi llaaha fi shatri athaani qofkii ilaahay uu ku arsaaqay haweenay wanaagsan haweenay saalixa ah qofkii ilaahay ku arsaaqay qofkii haweenay ahludiina ilaahay uu siiyey hadda haweenaydaa la sheegay sidoo kale gabadhii ilaahay uu siiyey wiil saalixaho ahludiin ah ilaahay wuxuu ugu kaalmeeyey oo ku caawiyey diinkiisa bar ka mida qayb ka mid ahaa ilaahay ku garab siiyey oo maaragtay u badbaaday falyattaqi llaaha fi shatri athaani ee qaybta ama barka soo haray ilaahay ha uga baqo oo ha ilaashada ruuxaasi marka guurkii waxa weeye wuxuu ka ilaalinayaa dembigii iyo fisqigii ayuu labadan qof ka ilaalinayaa hadday dadku dad iimaan la yihiin macaasidiya ka dheeraanayaan dembig ma aadayaan mar kastaba qofka muuminkaahi inuu dhowrsado waa waajib oo uu iska ilaaliyo wixii ilaahay ka xarrimay fiiradii ilaahay ka xarrimay taabashadii ilaahay ka xarrimay daymadii ilaahay ka xarrimay hadalkii ilaahay ka xarrimay macaasidii kaleo kasii weyneed inuu iska ilaaliyo waa waajib laakiin haddana markii uu qofku uu xaas xalaala helo ama gabadhii ay zawj xalaala hesho markaas awooddoodiiya sii badanaysa laakiin hadda qofkii aan iimaan lahayn ee aan ahlu iimaan ahayn asagu hadda wax celiyaba maba jirtaba waxaa laga yaabaa asagoo xaas xalaala haysta inuu macsi kale iyo balaayo kale qofkii raadiyo laakiin qofkaasi ha ogaado markii uu asagoo xaas la haddii uu macaasi raadiyo in macaasidaasi gurigiisa kusoo laabanayso wacifuu tacifu nisaa'ukum uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dhowrsada gurigii xaasaskiinu ha dhowrsadeene marka guurkii marka wuxuu ka xifdinayaa qofkii aafaadkii iyo macaasidii ayuu ka xifdinayaa markaasuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj dhallinyaraday kooxdoodiiow ama jamaacadoodiiow qofkii adinka in ka mid ah oo awooda baa'ada waxa la yidhaahdo fasiro badan ay leedahay qarashkii waqtigaas maaragtay iyo labiskii qarashkii maalinkaas iyo habeenkaas noloshii iyo maaragtay labiskii fasalkaas ama waqtigaas qofkii awoodaa ha guursado maxaa yeelay fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj uu le nabigu calayhi salaatu wasalaam guurku markaas indhihii ayuu ilaalinayaa oo uu qofku macaasi ma fiirinayo farjigiina waa uu dhowrayaahoo shahwadiisa meel xaaraanayo lama aadayo waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa qofkii aan awoodinna ha soomuu leeya nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay soomku wuxuu qofkaas u noqonayaa shahwada mid ka jebinaya shahwadu ka baabi'inaya marka guurku wuxuu qofka ugu kaalmaynayaa walaalka muuminka iyo walaasha muuminadda intaba waxaa la faray inay shahwadeedii aysan maaragtay haddii ilaahay wuxuu faray inay indhaha laabtaan oo aysan fiirin wixii ilaahay ka xarimay marka taas guurka ugu kaalmaynaya oo ilaahay waa kii uu lahaa nabiga ku yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum muuminiinta ragga ah waxaa ku tiraa nebi moxamedow aragyadooda ha laabeen farjiyadoodana ha xifdiyeen gabdhihiina sidoo kale ilaahay wuxuu ku leeyahay waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna gabdhaha muuminaadka waxaa ku tirahdaa indhahooda ha laabeen farjiyadoodana ha xifdiyeen marka wixii laga xarimay weeye mid kasta wax ay ka laabayaan oo ka xifdinayaan guurka ugu kaalmaynaya guurka ayaa ugu kaalmaynaya guurku sidoo kale qofkii wuxuu ugu kaalmaynayaa inuu daacadii ilaahay guto inuu ajar daa'ima helo inuu owlaad helo inuu maaragtay qofkii mas-uul noqdo ayuu guurku ugu kaalmaynayaa inuu qofkii akhlaaq yeesho inuu qofkii tababar qaato maxaa yeeley qofku markii uu guursado nolol badan oo uusan arki jirin ayuu arkayaa mas-uuliyaduu qaadayaa ilmuu tarbiyaynayaa biiluu keenayaa xil ayuu qaadayaa waxaasoo dhan waxa weeye waa tarbiyo ku socota iyo tababar ku socda
marka qofkii waxa weeye ajara u soconaya waxaas nafaqadii iyo hawshii uu qabanayo wixii uu qabanayo dhan ajara u socda haddana tababar iyo mas-uuliyada ku socota waxaa ka mid a faa'iidooyinka guurka uu leeyahay xusuulu risqi risqigii ayaa qofka uu helayaa ama sacatul arsaaq arsaaqdii ayaa u badanaysa baraka ayuu helayaa wixii risqigiisiiya ilaahay u barakaynaya oo qofku markii uu guursado risqigiisii waa uu ballaaranayaa waa uu badanayaa waxa weeye faqrigaa looga baxaa guurka guurka faqrigaa looga baxaa markaas ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم waxaad u guurisaan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay gabdhaha garoobada ah u guuriya oo adinka in ka mid ah iyo ragga saalixiinta ah oo adinka in ka mida u guuriya oo addoomihiinna ah iyo gabdhaha addoomihiinna ah hadda waaye haddayse waxaysan ka waran ilaahay wuxuu leeyahay in yakunuu fuqaraa'a yugnihim allahu min fadlih haddii ay yihiin kuwo fuqara ah oo aan waxba haysan ilaahay ayaa deeqaya oo wax siinaya fadligiisuu ilaahay wax ka siinaya wallahu waasicun caliim ilaahayna fadligiisu waa ballaaran yahay waa alla og xaajaadka iyo amuuraha dhan og oo la socda baahidaada la socda marka ilaahay wuxuu leeyahay u guuriya hadday fuqara yihiin ilaahay baa deeqaya ilaahay baa hodan ka dhigaya ilaahay baa kafaalo qaadaya markaasuu nabigeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo noo caddaynaya arrintaas uu ku leeyahay xadiid halaahatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex qof ilaahay ayaa dusha iska saaray inuu u kaalmeeyo saddex qof ilaahayaa ballan qaaday oo dusha saartay inuu u kaalmeeyo ilaahay caawiyo ilaahay saddex qof uu waajib iskaga dhiga kaalmahooda koobaad almujaahidu fi sabiili illah waalmukaatabu aladii yuriidu aladaa waannaakixu aladii yuriidu alcafaaf kan koobaad waxa weeye qof jihaad fii sabiilillaahi oo xaq ah ku jira jihaadkii shuruuddiisa laga helay iyo dadkii la yidhaha lala jihaado qof ku jira kaas waxa weeye ilaahay u kaalmaynaya niyadii khaaliskaadna ay ka tahay kan labaad waxa weeye qof addoon ahaa oo qofkii addoonsa jiray ballan la galay iyo kitaabo oo doonaya inuu iska bixiyo qarash si uu u xoroobo asagana ay ka tahay iska bixi ilaahay asagana u kaalmaynaya kan saddexaad waxa weeye waannaakixu aladii yuriidu alcafaaf macnaha koobaad waa mujaahidka qofka ah labaad waa mukaatabka saddexaad waxa weeye waannaakixu aladii yuriidu alcafaaf qofkii guursaday ama guursanaya asagoo doonaya dhowrsasho oo wuxuu u guursanayaa inuu dhowrsado guurkan uu macaasida ilaahay uga dhowrsado ayuu doonayaa saddexdaas qofba ilaahay baa ballan qaaday inuu u kaalmeeyo oo risqigooda siiyo oo arsaaqdooda ballaariyo ilaahay ballan qaada marka u fiiriso nikaaxii faqrigaa looga baxayaa nikaaxii faqrigaa looga baxayaa faqri qofku kuma sii jirayo hadduu guursado macnaha shalay adigoon shilin heli karin haddaa guursati maanta reer dhambiilkooda ilaahay kuu soo dhiibaya marka waxa weeye waa wax oo maaragtay nikaaxu qofka muuminka ah dhan kastaba ka caawinaya laakiin niyaddii fiicneeda la rabaa nikaaxa sidoo kale waxaa ku sugan qalbigii oo faaruq ka noqda oo ka marta waswaaskii iyo tashuushkii wixii dumarka ku saabsanaa qofka uu ku fakero ama gabadhii ay ku fakerto raggii wixii ku saabsanaa qalbigu faaruqu ka noqonaya waa ka maranaya haddii ay rabaan inay cibaadaystaan qalbigooda iyagoo uu saafi yahay oo tashuush kale iyo wax kale fakar kale uusan ku jirin ayay cibaadaysanayaan marka maxanaha mar kastaba waa faa'iido socota nikaaxu waa faa'iido socota
waxaa ku sugan faa'idada nikaaxa fawaa'idiisa waxaa ka mid a inuu qofkii sabro calaa mucaasharati annisaa'i bilmacruuf dumarkii inuu kula mucaamaloodo oo kula dhaqmo wanaag inuu ku sabro maxaa yeele waa arrin samar u baahan iyo dulqaad iyo adkaysimo u baahan iyo xuquuqdoodii inuu u qumo wacaashiruuhunna bilmacruuf inuu mas-uuliyaddaas dareemo dumarka kula dhaqmo wanaag ayuu qofku awood u yeelanayaa iyo nafaqadii iyo biilka uu bixinayay wuu ajar fara badan ka helayaa marka nikaaxa faa'iidooyin aad iyo aad u fara badan ayuu ka helaya qofku awlaadiyuu ka helayaa oo markii aad dhimatidna ku anfacayso kuusoo ducaynayso walad saalix yadcuu lahu aad helaysaa intaa nooshahayna laga yaabo inaad ku intifaacsatid faa'iidooyinka nikaaxu uu leeyahay wax lasoo koobi kara ma ah waxaan haddaba marka aan wax ka taabanaynaa nikaaxa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu jideeyey markii uu noo sheegay aayadda qaybteeda koobaad ee nikaaxa ilaahay markuu yidhi litaskunuu ilayha si aad ugu soo xasishaan oo u soo hoyataan xaaskiinnii oo dhibkii agteeda ugu halmaantaan ilaahay wuxuu daba dhigay wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma dhexdiinnana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhigay mawaddo iyo raxmad iyo naxariisuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhigay mawaddada waxaa la yidhaahdaa waa macnaha fasiro badan ay leedahay waxaa ka mid a fasiradaas jacaylka ninka iyo xaaskiisa dhex maraya ayaa ka mida mawaddada raxmaddana waxaa ka mid a fasiradeeda awlaaddaa ka mida marka haddii aan ku soconno jacaylka dhex maraya labadan qof oo labadan qof dhex maraya ahi ma ahan jacaylku sida la moodayo ma ahan oo dadka qayba waxay moodayaan jacaylku inuu wax iska sheega yahay inaan shareecadu islaamku waxba ka hadlin inaan maaragtay aysan aan cidina danaynayn ayay moodayaan xuduuduu leeyahay jacaylka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey rasuulkeenu suuban sala allahu calayhi wasalam uu noo caddeeyey xuduuddaas ayaa la rabaa qofku inuu ku socdo xuduuddaas haddii la waayo wuu qaldamayaa macnaha tafriid iyo ifraad labadaba lama ogola tafriid iyo ifraad waxa weeye in aad mid waxa weeye aad ku xadgudubtid oo xadkii loogu talagalay xad ka baxsan aad u dhaqantid macnaha inaad xadka dhaafsiidid waxa weeye mathalanba inaad shareecada islaamku sidii ay u amartay si aan ahayn aad samaydid tan kalena waxa weeye in oo aad ifraad samaydid oo meesha ka saartid oo maaragtay tidhaahdid jacayl iyo aniga maxaana la kala yidhaahdaa waxaas jacayl iyo aniga sheekadayda maahan ama maaragtay dumarka ku sheekaysan ama maaragtay haba koran ahaatee aniga jacayl waxa la yidhaahdo la ima tuso waxa weeye saas iyo saasaan ahay maxaa jacayl ii sheegayaa oo labadii qof ay u dhaqmaan sidii laba qof oo ajnabi kala ah oo maaragtay isu soo hoydaan midba midka kale waryaa uu yidhaahdo oo maaragtay la isula dhaqmo qaab jafwo ah taas ma la ogola nabigeenna calayhi salaatu wasalaam haddii jacayl la yidhaahdo asaga ugu jacayl badnaa ummadda asaga xaasaskiisa ugu jacayl badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo naxariis asaga ugu naxariis badnaa dhan kasta oo wanaaga oo nikaaxu uu leeyahay nebi moxameda calayhi salaatu wasalaam looga daysanayaa xataa gaaladii ayaa wax ka qoreen oo maaragtay caddeeyeen in aan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof ku gaaraahi uusa jirin maxay tahay faanka aad ka faani kartaa oo aad dhihi kartaa jacayl waxa la yidhaahdaa amau ma qoro ama maaragtay lama soo geliyo markii nebi moxamed ilaahay uu yidhi kabacdi wajacala baynakum mawaddatan wa raxma waxaa dhexdiinna ilaahay uu dhigay oo uu yeelay kalkacayl iyo
naxariis. qofku inuu caddeeyo xaaskiisa jacaylkeeda ama gabadhii ay caddayso ninkeeda jacaylkiisa ceeb ma aha ceeb ma aha. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu muslima ayuu ka sheekeeyey khadiijo. markaas ayaa caaisha ku masayrto xoogaa ka caraysiida nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a. markaas ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii qad rusiqtu xubbahaa, aniga waxaa la igu arsaaqay oo ilaahay isiiyo iga buuxiyey khadiijo jacaylkeeda. jacaylka khadiijo ayaa maaragtay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ayaa la iga buuxiyey. jacaylka khadiijaa la igu arsaaqo la isiiyey. marka qofku inuu khadiijan hadda markaas waa dhimatay uu nabigu saalay calayhi salaatu wasalaam uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa la iga buuxiyey jacaylkeeda. marka adigu ma nebi maxamed aad ka fiicanta markaad xaaskaaga aad waa ku jecla aada dhihi karin, markii ama gabadhu ninkeedii aysan dhihi karin waa ku jecla, waxa weeye waa doqonnimo iyo isla qabweyni kale ma ahan wanaagii fiican maaha. kolleyto ma fiicna in oo meelahaas dadka dhexdooda qofku uu qofkii kale si oo xadkabaxa uu muujiyo, laakiin labada qof akhlaaqda leh markay isla joogaan jacaylkooda inay muujiyaan. waxa weeye ama qofku uu yidhaa xaaskayga waa jeclahay ama gabadha ay tirahda ninkayga waa jeclahay, waa sunnatu nabawiya. waxaa ka mid ah jacaylkii in uu ninku ammaani karo xaaskiisa. ninku inuu xaaskiisa ammaani karo oo uu ammaano oo wanaagga ay leedahay uu sheego, inkastoon la ogolayn in ninku xaaskiisa uu dad kale u sifeeyo u tilmaamo ama gabadhu ninkeeda ay dumar kale u tilmaanto lama ogola. laakiin macnaha inuu ninku sida kale xaaskiisa ammaanteeda iyo wanaaggeeda sheegahay waa sunna nabawiya. nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisho wuu ka sheekeeyey oo nabigu uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam caaisho waxay ka fadli badan tahay dumarka sida suqaarku uu cuntada uga fadli badan yahay. uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam sida suqaarku uu cuntada uga fadli badan yahay ayaa caaisha dumarka uga fadli badan tahay. xadiis bukhaariya uu nabigu leeyahay wa ina fadla caaishata cala annisaa ka fadli thariidi calaa saa'iri aطacaam. caaisho dumarka waxay uga fadli badan tahay sida suqaarka uu uga fadli badan yahay cuntada kale. marka waxa weeye inuu qofku xaaskiisa ninku ammaano oo wanaaggeeda sheego ama uu yidhaah waa ku jeclahay ama uu maaragtay waxaasoo dhan. waxaa ka mid a jacaylka calaamaadkiisa inay labadii qof wada kaftamaan oo wada sheekaystaan oo kelimaad fiican is yidhaahdaan oo hadal fiican maaragtay is yidhaahdaan. waxaa ka mid a jacaylka calaamaadkiisa in uu maaragtay xataa muuqaalka ama body languageka la isku farax geliyo oo maaragtay labadii qof aysan weji macbuusnimo iyo maxaad leedahay iyo maxaa rabtaa iyo muxuu ahaa iyo waxaas inaan lagu wada dhaqmin. taas waxa weeye waa khilaafsanta hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam. gabadha fiicanna markuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam kama mid ahayn tilmaamaha ay leedahay. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis uu wuxuu ku leeyahay alaa ukhbiruka bikhayri maa yaknizu lmar'u, ma kuu sheegaa wax qofku kaydsado waxa ugu wanaagsan. wax qofku kaydsado waxa ugu wanaagsan ma kuu sheega. almar'atu asaalixa waa haweenayda wanaagsan ayaa wax qofku kaydsado ugu wanaagsan. u fiirso tilmaamaheedii maxaa ka mid a idaa nadara ilayhaa sarrathu, haddii uu fiiriyo way farax gelinaysaa.
wa idaa amaarahaa ataacatu haddii uu wax faro waxaa samee uu yidhaahdana way adeecaysaa wa idaa gaaba canhaa xafidathu haddii uu ka maqnaadana way ilaalinaysaa nafteedii iyo hantidiisii labadaba oo nafteedii macsi kuma dhacayso gabadhaas waa mar'a saalixa marka u fiirsa nabigu wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam haddii uu fiiriyay farax gelinaysaa macnaha weji macbuusnimo iyo luqad adag iyo waxa weeye midna la islama soo qaabilin waxaa la isla soo qaabilay muuqaal iyo qaab fiican taasaa farxaddu ay ku imaan kartaa ee farxaddu kuma imaanayso in oo maaragtay luqad adag iyo la isu isticmaalo jacaylka way ka soo horjeedaa waxaan rabaa inaan soo qaato qiso oo jacaylkaas la xiriirta oo maaragtay caddaynaysa ay hooyo dadkii hore ah oo xataa ummaddeenna ka horraysay ay ugu dardaarantay gabadheeda iyadoo la guursanayo markii sideeda cilmiga laga sheekaynayo oo qof la sheego qofkii kale way qusaydaa dhanka kale haddii gabadhii laga sheekeeyo masaladaas ninkiina waa qusaydaa gurigu wuxuu ku dhismaa labada dhinacu ku dhisan iyo labada tiir wixii shareecadu ay wax ka sheegto qof ay farto kan kalena waa laga rabaa marka hooyadaani waxay ahayd gabadheedii ayay u dardaarantay leylata zafaaf habeenkii arooska ayay u dardaarantay oo waxa weeye gabadhii laga aroosayay maadaama gabadhii guri kale iyo reer kale iyo dad aysa aqoon nin aysa aqoon maadaama ay aaday ayay dardaaran siinaysaa markaasay waxay tiri gabadheeda ayoo la dardaarmaysa waxay ku tiri innaki qad faaraqti baytaki alladii minhu kharajti waxaad adigu faaruqday oo ka tagtay gurigaagii guriga aa ka soo baxday iyo meeshii buulkii aa ku kortay meeshii hooyga kuu aheedoo ku soo kortay waad faaruqday tiri waxaana aaday guri aadan aqoon oo kugu cusub iyo wa qariinin lam tacrifiih iyo saaxiib kugu cusub qof rafiiq kugu cusub waa ninka dadaad la noolaa jirtay guriyaad ku noolaa jirtay waad ka tagta hadda guri kale iyo nin kale saaxiib kale oo kugu cusub ayaad aaday marka noloshu waa inay isbeddeshaa noloshii gurigan aa ku joogtay marka ma sii soconayso maxaa lagaa rabaa fakunii lahu amah yakun laka cabda waxaad u noqotaa ninkaas ninkaaga aad u tegay sida kugu cusub waxaad u noqotaa addoon qof addoon camalo u noqo adigana wuxuu kuu noqonayaa addoon haddii aad adigu wanaagga qaybtaadii lagaa helo ee wanaaggii lagaa rabay aad la soo qaabishid addoon ayuu adigana kuu noqonayaa marka ninkaaga ola dhaqan adigu sidii adigoo addoon u ah markaas asaguna wuxuu kuu noqonayaa addoon u fiirso weligaa markii qalad dhaco oo xumaani dhacdo oo reerka dhibaata ay soo dhex gasho khilaaf uu soo dhex galo isku day adigu inaad wanaagga ka shaqaydid wanaagga markaa ka shaqaysid ilaahay wuxuu kugu amaalmarinayaa inuu qofka kale qalbigiisa kuu jilciyo oo meeshaas wanaag uu ka soo baxo meeshaas wanaag inuu ka soo baxo maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu qur'aanka kariimka ku leeyahay walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a wanaagga iyo xumaantu ma sinna idfac bilatii hiya axsan waxaad ku jawaabtaa oo qofkii xumaan kugu sameeya ugu jawaabtaa tan wanaagsan maxaa imaanaya qofki haddii uu xumaan markuu kugula dhaqmo wanaag aa kula dhaqantid maxaa imaan kara meesha taasuu nebigu noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu leeyahay ilaahay noo caddeeye dheh ilahay noo caddeeye waa qur-aanka markii qofkii adiga kula soo qaabilay xumaanta aa wanaag la qaabishid maxaa imaan kara
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفيرسو قفك أدي أساق عداوة أين كدحيسي وحو نقونيا صاحب قال كوفي عنو كو نقونيا marka haddii aad dhibaato tabatid guriga haddii xaalada ay ka dhacdo waxaad isku daydaa bal adigu marka hore wanaag inaad ka shaqaydid dulqaad inaad ka shaqaydid aad samirtid isku day marka gabadhaani waxay ku tiri hooyadaani markay gabadheeda u dardaarmaysa waxay ku tiri ninkaaga addoon u noqo addoonu kuu noqonayaa waxfadii lahu 10 khisaal 10 xaalana u xifdi u fiirso 10kaas la dhageysto yakun laki dhukhra kayd ayay ku noqonayaa 10 xaala haddii aad adigu ku dadaashid oo xifdisid adigana arrintaas waxa weeye waad guulaysanaysaa 10 xaaladood haddii aad ilaalisid 10 shay waad guulaysanaysaa hooyadii tir u fiirso 10kaas xaalo bal aan u fiirsano أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة مدة كوباد يتن لباد 10 كمد وحوي الصحبة بالقناعة إن أدل الساحيبتد قف كان نين كان إن أدل الساحيبتد نينك أقورسة الساحيب maxaad kula saaxiibaysaa qanaaco gabar qanacsan noqo ha sheegan dhibaato iyo balaayo iyo musiibo iyo faqri ha ka caban qanaaco kula saaxiib waxaa laga yaabaa inaad biilkaaga maanta haysatid laakiin aad ka qaylinaysid oo ka walwalaysid mustaqbalka dambe oo leedahay waa la hoogay waa la ba'ay dhibaataa dhacday wax ma la haysto aad leedahay xadiidkii saxiixa nabigeenu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وحالي باني قفكي إسلامي ومسلم نقضي إلهينا وحكو فلان أوسيي حدنا قناعه إلهي وقدره وحي إلهي سي وقناعه سي وكو قناعسان وكو فرحسان وأنا قرأت قصة النبي إبراهيم عليه السلام markii uu nabi ibraahim qisadii nabi ibraahim markuu u yimid wiilkiisa nabi ismaaciil uu xaaskiisii warsaday ay ka cabatay dhibaatada iyo faqriga iyo balaayada wuxuu yiri u sheeg wiilkaaga igu salaam guriga meesha laga soo galo cagasaartana ha bedelo iska furwey gabadhan gabar oo cabasho adduunyo ay ku jirto cabanaysa munaasab uma ahan nabi ilaahay gurigiis nabi ismaaciil waa iska fura ka bacdi gabar kale u guursaday gabadhii kale u guursadaa waqti dambe nabi aadam u yimid markaas ayaa nabi ibraahim carabka iga dhacay nabi ibraahima u yimid markaasuu warsada markaasay tir barwaaqan ku jirna ilaaha noo gargaaray waxa weye biyo iyo hilibaan ku noolnahay markaas ayuu nabi ibraahim wuxuu ku yidhi ha adkee guriga cagasaartiisa markaasaa nabi ismaaciil hadhow markay u sheegtay wuxuu yidhi aabbahay u ahaa inaan ku haysto raba marka qanaacada waa muhiim labada qof wixii ilaahay siiye inay haystaan ayna qanacsan yihiin muhiim weeye marka gabadhaani waxay ku tiri koobaad ninkaaga qanaaco kula saaxiib qanacsanow waxaa hesha ku qanacsanow midda labaad walmucaashara bixusni samci wadaaca iyo inaad kula dhaqantid waxa weeye dhagaysi adeecid oo aad maqlaysid ee aadan dood wax kasta dood iyo khilaaf iyo qajajac haddii gurigu uu ku noolaado ee kala dambayn la'aan ay gurigu yimaado ee laba madaxweyne guriga ka jirto dhibaato lagama baxo waa in guriga madaxweyne iyo ku-xigeen uu yahay waa in qof sarreeya mar kasta haddaan kala sarrayna jirin ay la sinmo tii la isqabqabsado weeye waa labadaas qodob waa qanaaco kula noolow maqal wanaagsanna kula noolow midda saddexaad iyo tan afraadna waxay tiri fattacahudu limawqici caynayh wattafaqudu limawdici anfih waxay tiri indhihiisa ka warqabo yacni isqurxi indhihiisu yaysan kaa arkin foolxumo falaa taqacu caynaahu minki calaa qabiix labadiisa indhood yaysan kaa arkin foolxumo
adigoo labiskaagu kala daadsan adigoo maaragtay aan nadiif ahayn adigoo maaragtay isku dhex yaacsan adigoo xaalad ku jiro ma fiicna sidaa darteeda shareecadu waxay amartay in ninku hadduu safar ku maqan yahay ee xaaskiisa uu u imaanayo inuu maaragtay uusan guriga habeenkii usoo dheelman shareecadu amartay hadduu yimaadana uu soo mara masjidkiiyo meelahaas hadda laakiin telefoonaba jiro waxa weye wixii oo dhan hadda waa lasii kala war helaya diyaargarowgu waa lasii diyaargaroobaya hadda marka waxaa la diidayaa ninkan inuu xaaskiisi ugu yimaado xaalad xun oo aan fiicnayn oo ay isku dhex yaacsan tahay ee markaas qalbi nac u yimaado markaa nabigeenu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yaan guriga habeenkii lagu soo guurin uu leeyahy macnaha waqtigaas hadda telefoon ma jirin iska warhayn ma jirin safar dheeraa ninkii jiray hadduu soo guurayo guriga inuu yimaado maahna cid ka warqabaysa ma jirin marka laakiin hadda waa la iska soo warrami karaa marka waxay tiri indhihiisa ilaali tan labaadna waxay tiri sankiisana ilaaliyo waxa weeye walaa yashmanna minki ilaa atyaba riix yuusan kaa urin caraf ma ahana wax kale oo waxa weeye is-udgi isnadiifi isdaahiri waxay tiri indhakuusha waxa weeye waa wax la isku qurxiyo waxyaalaha ugu fiican biyihii iyo saabuuntii waxaas isticmaalay tiri marka taasna waxa weeye qodobka saddexaad waxa weeye indhihiisa ilaali qodobka afraadna waxay tiri sankiisa ilaali shanaad iyo lixaad waxay tiri fattafaqudu liwaqti tacaamih walhuduu'u cinda manaamih inaad horta cuntadiisa waqtigeeda ka warqabtid oo waxa weeye cuntadiisa aan ninka ka war haysid maxaa yeelay gaajadu waxay keenaysaa xaaladay keenaysaa hurdadiisana aad ka warqabtid oo waqtigu hurdaayo hurdadiyooda ku nixin iyo aada qajajac gelin iyo dood aada gelin iyo kurba aada gelin iyo waqtiga xun oo dagaalka la bilaabo ayadana waxa weeye dhibaato kale keenaysaa labadaasna iska ilaaliya tiri oo waxa weeye inaad waqtigii hurdada aad xaaladda xumaato ama cuntadii ay xaaladdu xumaato ayadana ka digtoonow midda toddobaad iyo midda sideedaad falcinaayatu bibeytihi wa maalih waricaayatu linafsihi wa ciyaalih tan toddobaad waxa weeye inaad dar yeeshid oo ku dadaashid gurigiisa iyo hantidiisa tan sideedaadna waxa weeye inaad dar yeeshid naftiisa iyo ciyaalkiisa sagaalaad waxa weeye iyo tobnaad falaa tacsiina lahu amra walaa tufshiina lahu sira sagaalaad waxa weeye ha khilaafin oo waxa weeye ninkaaga yacni khilaafka iyo isqabqabsiga ka jooji oo wixii uu kuu diro aad dabamaryeynaysid tobnaadna waxa weeye sirtiisa ha faafin maxaa yeele waxay tiri haddaad amarkiisa khilaaftid qalbigiisaa huraya colaadana dhalanaysa haddaad sirtiisa faafisidna hadda shartiisaba kama aamin noqonaysid asagaadaba aamin ka noqonayn marka waxa weeye intaas kabacdi waxay kusoo gabagabayda hooyadaas gabadheedii markay la dardaarmaysid iyaaki walfaraxi cinda ikti'aabih walikti'aab cinda faraxi waxaad iska ilaalisaa inaad faraxsanaatid markii ninkaagu uu kurbaysan yahay u fiirso ninkaagu markuu kurbaysan yahay inaad faraxsanaatid iska ilaali maxaa yeelay waa taqsiiriya inaadan qofkan u aaba yeelayn kurbadiisa aa ka dhalanaysa dhanka kalena waxay tiri kurbada iska ilaali markii uu faraxsan yahay tan kalena waxa weeye farxaddiisii aad halaynaysaa marka waxa weeye yacni adigu waa qiso oo dadkii hore ka dhacdo ummadihii annaga naga horreeyey wax badana ay naga quseeyaan waxaasoo dhanna waxay xoojinayaan jacaylka hadda hadalkan hadda gabadha lagu yiri intoo kalena ninka waa laga rabaa ninkana intoo kale ayaa laga rabaa ma ahane macnaheedu ma ahan in oo gabadha kaliya laga rabo jacaylku wuxuu ku dhammaystirmaa labada qof oo mid kastaba laga helo haddii luqad wanaagsan oo lagu wada hadlo haddii maaragtay la kaftamo haddii la isqurxinayo haddii la isu labisanayo haddii la israali gelinayo haddii la is adeecayo haddii dhan kastaba jacaylku wuxuu ku dhammaystirmaa labada dhinac hal qof kaliya kama dhammaystirmi karo jacaylku jacaylku hal qof kaliya kama soco karo marka waxaa loo baahan yahay in oo
labada qof ay iskaashadaan guriga noloshiisa isku kaashadaan hadda waxa la sheegayo shareecadu sheegaysahay waa sidii ugu fiicneed oo ugu wanaagsaneed oo khayr ka badneed haddii labada qof uu waajibkiisi ka soo baxo ee dhanka kale uu ka waayo wixii uu ka rabay maxaa lagaa rabaa ma waxaa leedaha maya saana la amray shareecada anigu taydii waa la imid tii kale waa waay gurigan burburi miyaa leedaha maya waa inaad sabartid wey waa inaad samirtid oo samirkaa wax lagu gaaraa ilaahay ayaa waajibkaaga ilaahay ajar kaa siinaya ilaahay ku abaal marinaya marka macnaha maahan marka la leeyahay sidaas iyo sidaasaa fiican haddii la waayo in reerka la burburinayo macnuhu maaha saas maahan macnaheedu waxaa la rabaa ajarka qofku ma helo hadduusan dhibtoon ilahay agtiisaa wax ka helaysaa marka qofku waxa weeye guurku waa sidaas waa nolosha qofku waxa ay ku kaamil noqoto oo uu qofku farxadda runta uu ku dareemo waxaa jira markii la guursado oo labadan qof ay isguursadaan hambalyo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida la iskugu hambalyeeyo ee nebigeenuna bara calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a sida xadiidka abi daawuudka ku qoraa uu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam markuu qof u hambalyeynayo ama qof uu u bogaadinayo wuxuu nebigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam baaraka allaahu lak wa baaraka calayk wa jamaca baynakumaa fii khayr nebigu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam baaraka allaahu laka ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha barakeeyo adiga xaaskaaga allah barakeeyo adiga ha kuu barakeeyo macnaha kuu barakowdo xaasku wa baaraka calayka adiga korkaagana ha loo barakeeyo ha la barakeeyo macnaha gabadhaadii baraka ha hesho macnaha u barakow labadii dhinacaa la kala siiyey markaas ducada wa jamaca baynakumaa fii khayr dhexdiinnana khayr allah ku kulmiyo riwaayo kale fil khayr khayr allah ku kulmiyo dhexdiinna riwaayo kaloo uu ibnu maajah warinayo baaraka allaahu lakum wa baaraka calaykum wa jamaca baynakum fii khayr labadiinnaba allaha isu kiin barakeeyo korkiinna allah isu kiin barakeeyo khayrna dhexdiinna allah ku kulmiyo saas waxa weeye hambalyada oo sunnadaa soo aroortay sidoo kale waa la isu isticmaali karaa erayo bogaadin oo kaloo fiican waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay caaisha warinaysaa gabar agoona ayaan guurino ansaarahay leedahay nin ayaa ansaariya ayaan u guurinay marka dadkii oo u galbiyaan ka mid ahay tiri ninkeeda markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishoy ansaare waxay leeyihiin erayo oo maaragtay maaweelo iyo aha maxaad ku tiraahdeen markaasaa niriyay tiri waxaan ugu ducaynaa barako markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaa u dhihi weydeen ataynaakum faxayuunaa nuxayiikum walowla adahabu alaxmar maa xallat bawaadiikum walowla alxabbatu samra lam tasman cadaariikum waa idiin nimid waxa weeye faxayuunaa nuxayiikum macnaha waa na salaama waa idin salaamaynaa haddii dahabka cas uusa jiri lahayn waxa weeye ma aysa soo degteen baadiyihiin yani lacagta haddii oo raashinkaasi uusa baasha alxabatu samra raashinkaas hadduusa jiri lahaynna gabdhihiinu ma cayileen macnaha waa erayo oo ammaanaho waxa weeye iyo kaftan iyo la iskugu hambalyeynaa waxaa marka loo baahan yahay guurka marka qofka uu guursanayo waxaa la rabaa in qofkii guurka haddii qof muslima uu guurka kaa soo doono in loo guuriya la rabaa qof muslina hadduu guur kaa soo doono in loo guuriyo qofkan waxaa laga fiirinayaa akhlaaqdiisa iyo diinkiisa iyo sharaftiisa inay noqoto inaan qabiilkiisa la fiirin inaan noociisa la fiirin dadka waxa weeye ilaahay addoomihiisu waxay ku kala fiican yihiin diinka iyo akhlaaqda ku kala fiican yihiin markaasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh haddii uu idin yimaado qof aad ku qanacdaan oo ka raalli noqotaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa qof aad ka raalli noqotaan hadduu idin yimaado ama riwaayo kale hadduu idinka soo doono u guuriyuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qof diinkiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku qanacdaan hadduu idinka soo doono u guuriya
ilaa takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid. haddaa u guuri diidaan waxa weeye waxaa imaanaya fitno ayaa dhulka dhacaysa iyo fasaad ballaaran. dadkii la isu diiday inay macsi iskugu tagaana imaan karta. ma bannaana inay iskugu tagaan, laakiin waa dhici karta sababaadna ku noqonaysa sababaad u noqonaysaa. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray qofkan markuu guursanayo waxaa laga rabaahe oo lagu weydiinayaa inay tahay maaragtay akhlaaqdiisa iyo diintiisa inaad fiiridid. qabiil hebel iyo ree hebel iyo hanti iyo magaciisi inaada ku xirin. maxaa yeele qofkan kale gabadhaada ayay laftigaa waqtiga ku dhammaynaysaa, shuruudda ku adkaynaysaa, hadhow inay qof kasta iska raacdaad keenaysaa. taas waa mid. dhanka kalena wiilkii laftigiisa markuu guursanayo waxaa la rabaa dadka uu guursanayo inuu fiiriyo akhlaaqdooda iyo diinteeda inuu fiiriyo, oo gabadhii inuu ku doorto sidii rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu diinta ku doorto. diin inuu ku doorto waxa weeye nabigeenu calayhi salaatu wasalaam diinta in lagu doorto ayuu fadilay. takhayaruu linutafikum wankixu lakfaa'a wankixuu wa ankixuu ilayhim. wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam biyihiinna u doorgeliyo u xusha, u meel xusha, oo dadka isu dhigma waxa weeye guursada akfaa'da ah, dadka kufka ah guursada una guuriya. marka waxaan rabnaa dhowr gabdhood oo tusaale oo ah guurka wanaagsan inaan soo qaadano. maxaa yeele waxaa la rabaa qof kan wanaagsan miraha ka imaan kara inaan ogaano. markii gabar fiican qoyskii lagu dhiso lagu aasaaso miraha ka imaan karo ayaan ogaanaynaa. waxaa jira waqtigii sayid cumar bin khataab radiallahu canhu khaliifkii labada islaamka uu maamulayay muslimiinta ayaa habeen asagoo wareegaya oo kontaroolaya carrada ayuu wuxuu maqlay hooyo gabadheeda ku leh nacaanaha biyo ku dar. markaasay gabadhiina diidaysaa. markii gabadhii ay diiday ay hooyadii gabadhii waxay ku tiri hooyay soo ma ogid cumar inuu soo rogay amar ah inaan caanaha biyo lagu darin ee dembi ka imaan karo, soo ma ogid. markaas ayaa hooyadii waxay ku tiri cumar nooma jeedo halkan ma joogo. markaasay gabadhii waxay tiri haddii aan cumar noo jeedin cumar ilaahiisii yaa noo jeeda. cumar ilaahiisii ayaa noo jeeda. marka waxaa maqlay hadalkaas sayid cumaraa maqlay, allah ka raali noqdo. sayid cumar markii uu maqlay hadalkaas waa uu ka tegey wiilashiisii u teg. markaasuu wiilashiisi wuxuu ku yidhi war gabar wanaagsana arkee. horta wuxuu soo ogaaday gabadhaas in la qabiyo in kale inaan la qabinuu soo ogaaday. gabadha sidaas u xalaal meeradka ah ee wanaagsan ee dembigii macsida ka dhowrsanaysa uu soo ogaaday inaan la qabinaa loo sheegay. markaasuu wiilashiisii wuxuu ku yidhi yaan u guuriya gabadhaas. wiilashii kale waxay yidhahaan xaasasaan leenahay. wiilkiisii la dhihi jira caasim binu cumar binulkhataab ayaa yidhi aniga ii guuri. waa uu u guuriyey. markii uu u guuriyena gabadhii gabaray dhashay. gabar ayay dhashay. gabadhii ay dhashay ayaa waxay sii dhashay cumar binu cabdilcaziiz, khaliifkii la yaqaanay ee cadaaladda badnaa ee islaamka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfacay. sayid cumar binu khataabaa awow ahaa cumar binu cabdilcaziiz, gabadhaasuu ka soo jeedaa. u fiirso, gabadhaasa ayee u ah. marka qofka fiican markii loo duur xulo nikaaxa, markii la fiiriyo miro fiicana ka soo baxaya oo qofkii akhlaaq lagu xusho, diin lagu xusho, dhaqan lagu xusho, wanaag lagu xusho, wax fiicana ka imaanaya. laakiin haddii aan lagu xulan intaas waa kaa helay kaliya la isku xusho miro fiican kama imaanayaan. waxaan kaloo tusaale u soo qaadanaynaa. waxaa laga yaabaa dad badan gabdhahooda markii lasoo doono inay ku adkeeyaan guurkii oo hanti ku xijeeyaan,
gabdhaha qaarkoodse markii guurkii la doono in oo masalan wiilkii ayadii isfahmaan inay ku xujeeyaan lacag fara badan iyo qarash fara badan oo meeshaas guurkii caqabad ay ku timaado waxaa dhici karta inay tiraahdo aqal noocaasa ii dhig dahab noocaasa ii xir hotel noocaasa ii kiree kursi noocaas ha la ii dhigo dhar noocaasa ha la ii xiro kooxda noocaasa ha la ii soo kireeyo cayaarta noocaasa ha la ii dheelo wax oo wada uusa ilaahay raalli ka wada ahayn waxaas qofka shuruudaas gabadha xiranaysa ujeedkeedu guur ma aha maxaa yeelay ujeedku guur haddii uu yahay sidii xalaal ah ee guri lagu dhisa kalaa laga fakari lahaa laakiin ujeedkeedu ma ahan waxay raalli garinaysaa kooxo kale iyo dad kale iyo dada isleedaha meel iska saar marka qofku intuu dad kale raalli gelinayana ujeedkiisa ma gaari karo hadhowna gurigiisa wuxuu ku baaba'ayaa dad kale raalligelintood markaase waxay ku jiraysaa noocaasaan rabaa iyo noocaasaan rabaa iyo noocaasaan rabaa gabadha muuminadda ha ku fakarto ma waxaad ka khayr badan tahay faatima bintu rasuul gabadhii rasuulka faatimo rasuul oo nebi maxamed uu dhalay uuna guursaday cali binu abi taalib maxay ku guursata cawyaraa nebi maxamed u dhigay calayhi salaatu wasalaam markay inta gurigeedii degtay awaa dambe xataa ka soo cabatay hawshii guriga calihii gacanihii ay biyuhu ka galeen nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u soo cabatay adkaaru nabigu baro yiri tana khaadimkaas inkaga khayr badan u fiirsa kama khayr badnid waad ka doqonsanta waxaa keenay kalsooni haddii gabadhu ay leedahay aabaheedan ku qasbi karin wax oo hooyadeedan ku qasbi karin wixii ilaahay uusan ka raalli ahayn marka lagu xujeynayo wiilkan misalan ba wiil intaasoo lacag haysta waxaa laga yaabaa lacagtiisi in maanta kaliya lagu baabi'iyo meeshaas berrina adiga asaga guriga iskugu tagaa adinkoo cayr ah adinkoon waxba haysan maadan ku fakerin wiilkan maanta markuu ku guursado qabiltu yiraahdo xoolihiisa inaad adigu leedahay ma ku fakarti inay adiga kuu yaalaan ma ku fakarti waxaan lagu cayaarayo oo lagu dheelayo oo kooxaha shaydaanka lagu kireynayo oo cayaarta lagu tumayo oo hoteelada qaaliga ah oo ilaahay ka raalli ahayn lagu kireynayo aakhire in lagugu gubayo berrina aad faqiir gurigaaga ka dhigtay ninkaaga aaniya jebisay ma ku fakarti haddaa aragtid gabar shardinaysa waxaas xaqiiqo waxa ah kalsooni nafteedaysa haysan dad kale rabta markay kalsooni inay ka hesho noocaasa la ii dhigo kooxdaasa la ii soo kireeyo ha ii haysteen ha ii boodboodeen dharka noocaasa la ii xiro kursiga noocaasa la ii dhigo hoteelka noocaasa la ii kireyso iyo waxaana aqoon gaariga noocaasa ha la ii soo kireeyo waxaasoo dhan waxa weeye qofkii kalsooniyaysa haysan markaase waxay rabtaa kalsooni inay ka hesho muuqaallo kale laakiin gabadha muuminadda ah ee kalsoonida haysataa ayada iyo ninkaas heshiiyey wixii tabartooda ah ay wax ku qaybsadaan hooyadanse iyo aabbahanse ayagu shuruudda ku adkaynaya gabadhooda miyaysa ka fakarayn haddii adinka isku baahan laynku adkay lahaa maxaan ku dhici lahaa waxaa jira dad oo gabdhihii inta guurkii ku adkeey hadday rabaan halkan ha joogeen ama waddan kale ha joogeen meeshay rabaan ha joogeen soomaaliya ha joogeen dadaa gabdhihii duqoobeensay guurka ugu adkaynayeen dadaa gabdhihii macaasi iyo wiilashii ku dhacen siday guurka u adkaynayeen dadkaas ilaahay subxaanahu watacaala maalinka qiyaama la xisaabtami doona waxaa carabtaas ka dhacay gabar ayaa aabbaheed laga soo doonay carabta markaasuu hanti badan ku xujiyey hanti fara badan ayaa uu ku xujiyey markii uu ku xujiyey gabadhii ninkii soo doonaba hanti fara badan uu ku xujiya ilaa gabadhii weynaato wax soo doonoo dambe la waayay gabadhii waa iska duqowday waa weynaatay waa dambe iyadoo la nacay oo cidna aysa guursanayn oo gabarnimeed ku weynaatay waa xanuunsatay markii ay sakaraatulmowtka ku jirtay ayay waxay u yeertay aabbaheed naftu markay ka baxaysa waxay tiri aabba kaale aabbow ilaahay jannada macaankeeda ha kaaga xarimo oo ha kaa hoojiyo sidii aad guurka macaankiisa iiga hoojisay tiri u fiirso sidii guurka macaankiisa aad iiga hoojisay jannada macaankeeda alle ha kaaga hoojiyo ninkaas wuxuu shaqaystay ka war muxuu shaqaystay markayaan dadka isu baahan ee isu xalaasha ah ee si saxa inay isku guursadaan doonaya waalidku yuusan ku adkayn ha u fududeey
hadday dadkaan yihiin dad xalaal in isku guursadaan raba ha loo fududeeyo ayaguna yaysan isku adkayn oo gabadhu yaysan ku adkayn wiilka ilaa badanaa wiilka xaggiisa wuxuu ka yimaadaan ha ku kalsoonaata nafteeda yaysan kalsooni ka raadin dad kale waxaan rabnaa inaan soo qaadano dadkii ugu wanaagsanaa guurkoodii ninkii la dhihi jiray saciid binulmusayib yuu ahaa wuxuu ahaa taabici jaliilah ee asxaabtii rasuulka wax ka bartay axaadiista dadka laga wariyo ugu waaweynaa gabdhahoodii aan idiin soo qaadanayna tusaale siday iskugu kalsoonaayeen saciid binu musayib wuxuu ahaa dadkii ugu waaweynaa axaadiista laga wariyo abi hurayre iyo dadkii axaadiista ka qaato ahaa gabar ayuu dhalay gabadhii diinta baray oo tarbiyeeyey oo wanaajiyey gabadhii markii la ogaaday sharafteeda iyo wanaaggeeda iyo akhlaaqdeeda iyo dhowrsanaanteeda iyo cilmigeeda iyo sharafteeda markii la ogaaday iyo kitaabka ilaahay say ugu dhaqanto ayaa waxaa soo doonay ninkii la dhihi jiray hishaam binu cabdilmalik oo madaxweynaha islaamka markaas ahaa wuxuuna u doonayaa gabadhaas carruurkiisa u doonaya fiiri gabadhaa nin sheekh oo caalimha dhalay sharafteedii iyo cilmigeedii iyo cibaadadeeda la ogaaday waxaana soo doonay madaxweynihii islaamka allahu akbar u fiirso maanta maxaan dhihi lahayn alla ilaah madaxweynihiyaa soo doonay ha la kala cararo ha loo geeyo ha la yeelo annagoo adduunyo u xilanayna ee aan gabdhaheenna fiirinayn gabdhaheenna maxaa soo gaari kara ma lihin gabadhaada meesha aa geynayda kama fakarayside waxaad ka fakaraysaa adiga waxa ay helaysida adduunyada dhibaatada jirta hadda hooyooyinka maanta waxa weeye aabbihii hooyadii gabadhii kala jiidanaya gabadhii markay qaan gaarto gabadha waxay jeceshahay kama fakarayaan hooyaduna waxay leedahay aniga wiil ciddayda ah hore abtiha aan gabadha siisanaya aabbuhuna wuxuu leeyahay aniga mid ciddaydahan siinaya isku qancid iyo maxaa u jacayl iyo qabyaaladaasaa la rabaa maba la rababa gabadhan mustaqbalkeedaba u fiirsa marka madaxweynihii gabadhi uu soo doonay saciid binu musayib oo nin sheekha ah oo cilmiga dadka baro oo aan adduunyo kala lahayn gabadhiisii muxuu sameeyey wuxuuna gabadhan loo rabaa ninka madaxweynahan ku xigi doono boqortooyada dhaxli doonaa loo rabaa markii la soo doonay saciid binu musayib wuxuu ku yidhi gabadhayda waa idin diiday uu yidhi gabadhayda waa idin diiday riwaayaadka qaarkood waxay sheegaan gabadha saciid binu musayib inuusa siinan waa ogaan marka saciid binu musayiba inta loo tegey waxaa la yidhi gabadhaadii aan la soo heshiinay inaanna sidaan rabnaa markaasuu yidhi waa beena loo sheegaa markaasuu yidhi gabadhaydii aan ogaayoo tarbiyeeyey nimankiinan madaxdahoo dowladda ku jira inay yeelayda u malay maayo yidhi ayadiina inta loo tagaa war kale loo sheego waxaa la yidhi aabbaanna soo kaa siiyey markaas waxay tihi aabbahay hadduu yahay aabbihii aan ogaayo isoo tarbiyeeyey inuu adinkaas idin siinaa nimankiinaas dowladdaho xalaal iyo xaaraan ya ahu aaba yeelayn u malay maayo tiri marka labadoodiiba warkoodii waa la ogaaday marka saciid binu musayib wuxuu yidhi gabadhaydaa soo doonteen soo maaha madaxweynihii islaamkaa soo doonay wiilkiisiiyoo madaxtooyada dhaxli doonuuna u soo doonay soo maahan waan diiduu yidhi gabadhayda ma siinaa madaxweynaha ma siinayo waa diiday kow maxaa yeelayuu yidhi wiilka madaxweynuhu wiil fiican ma ahanuu yidhi oo diinkiisii akhlaaqdiisu fiicanta gabadhayda ma siinayo yidhi gabadhayda aan soo tarbiyaystay meel xun ma dhigayo yidhi meel aan fiicnayn ma dhigayo adduunyo ku bedela maayo yidhi gabadhayda kow ninkii marka oo lasoo dirayaa u yimid oo wuxuu cabsiyu geliyo madaxweynaha warkiisa miyaad diidaysaa waxa weeye hanti iyo sharaf iyo cizi iyo wax kastaad helaysaa waxa weeye ha diidin ha yeelin mayuu yidhi gabadhayda anigu dhaafsan maayo xoolo meel ay ku raallitoo ilaahayna ka raalliyan geynayo hanti ma dhaafsanayo gabadhan uma tarbiyeyn inaan gatu yidhi gabadhayda inay islaamka anfacdaan u tarbiyeyo yidhi marka wuxuu yidhi adduunyadii markuu u tiriyo yidhi madaxweynaha anti iyo xoolo iyo madaxtooyadii aad la xiriiraysaan oo saciid binu musayib wuxuu ku yidhi u fiirso waxaan ku weydiiyuu yidhi adduunyadoo dhan ilaahay agtiisa garab kaneeco lama eka adduunyadoo dhan ilaahay agtiisa garab kaneeco lama eka
imisa madaxweynahan garabkaas kaneeco ka haystaa huu yidhi waa adiga i jeclaysiinaye madaxweynahani garabkaas kaneeco imisuu ka haystaa waa waxaba allahu akbar marka taas hay jeclaysiinuu yidhi kabacdi waa cabsi geliyey wuxuu yidhi maada ka baqeen madaxweynuhu inuu ku ciqaabo in lagu xiro in la yeelo saas markaasuu wuxuu yidhi ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ilaahay aad difaacayo yidhi ani kama baqaayo yidhi gabadhaydan anaa xoro waa la jooga maalinkii dambe ayuu saciid binu musayib masaajidkii fadhiistay darsi si uu u akriyo asagoo darsigii akrinaya ayaan waxaa ka mid ahaa ardaydiisa nin dhallinyaro ah oo cilmiga barta oo akhlaaq fiican oo alla ka cabsi badan oo la yidhaahdo abuwadaac maalmuuna darsigii 3 maalmood ka maqnaa markii uu yimid maalinkii asagoo uu yimid uu saciid weydiiyo wuxuu ku yidhi war xaggee jirtuu yidhi abuwadaacow markaasuu yidhi xaaskaygiyaa dhimatay marka aaskeedii iyaan ku mashquulsanaa markaasuu yidhi war maxaa noogu sheegi weyda aan kasoo qayb galnaa marka saasuu weydiiyey kabacdi markii hawshii dhammaatay wuxuu yidhi war xaas kale ma guursatuu yidhi xaas kale ma guursatay markaasuu yidhi ilaahay ha kuu naxariista saciid binu musayibow yaa ii guurinayuu yidhi anigooba haystuu yidhi 2 dirham ama 3 dirhaman xoola ka haystaa wuu yidhi 2 dirham iyo 3 dirham 3 pound ama $3 aan xoolo dhan ka haystaa yaa ii guurinaya markaasuu saciid binu musayib wuxuu yidhi anigaa kuu guurinayuu yidhi markaasuu yidhi ma saasaad samaynaysaa suu yidhi haa kabacdi inta khudbeeyu gabadha u nikaaxiyey saciid binu musayib ninka ardayga ah cilmiga baranayo alla ka cabsi ku jiro u guuriyey gabadhiisii xoolama dhaafsan gabadhiisii bas markuu u guuriyey ninkaani waa iska tegay haddaa hawshii anigoo farxadda iga badatay ayaan gurigayga aadu yidhi gurigaygiyaan tegey waxaan ku fakaray uu yidhi abeeyow yaa wax ka soo daynsataa see yeeshaa gabarha haddaa lagugu nikaaxiyey maqribkii aan iska tukaduu yidhi maqribka ayaan tukaday gurigaygiyaan tegey waa soomanaay wuxuu yidhi xoogaa yaroo cashahan meel ka soo qaatoo rooti yaroo qallalan iyo saliid aan isku qaysto ku afuro ayaan soo qaatay yidhi waa ninkii gabadha loo guuriyey markii aan soo qaatay ee aan afuray wixii yarka ahaa anigoo wixii cunaaya rootigii yaraa haysta albaabkaa lasoo garaacu yidhi markaasaan iru yidhi war yaa waa albaabka waxa garaacaya markaasuu yidhi waa saciid markaasaan ku fakaru yidhi saciid kasta oo magaaladan joogay waa ku fakara markii laga reebo saciid binu musayib maxaa yeelay saciid binu musayib asaga iguma soo dhicin 40 sano lama arkina leeri gurigiisa iyo masjidka meel ahayn dhexdooda laguma arkin markaasuu yidhi waa saciid binu musayib markaasaan markii aan albaab ka furo arkay saciid binu musayib inuu yahay waxaan is iruu yidhi gabadhii uu maanta kuu guuriyey ayuu ka noqday waaba kaa ceshadaba inta xaaladaada arkay uu kaa ceshadaan is iruu yidhi markaasaan iruu yidhi warniyow maxaa ku soo dheelmayo maxaad qof iigu soo diri weyda aan kuu imaade markaasuu yidhi adigaa mudan in laguu yimaado waxaan ogaayuu yidhi inaad tahay nin doob ah oo xaas lahayn gabadh xaaskaagii dhimatay waxaan dhibsaduu yidhi in xaaskaagii ay aniga igu ag hoyato waatan gabadhaadii aan kuu guuriye qabso u fiirsada islaamku wuxuu danaynayay gabadhan ninay u baahan tahay asaguna xaas u baahan yahay ilaahayna waa isu xalaaleeyey shuruud kale ma jirto 2 qof oo ilaahay agtiisa ku wanaagsanna waa yihiin ilaahayna waa arsaaqaya qabsuu yidhi waatan gabadhii marka gabadhii uu ii soo xareeyo yidhi gabadhii ii soo xareey albaabkiina waa noo xira gabadhii wuxuu yidhi xishood maaragtay nafta ka qaaday anigiina sidoo kale dad isku cusubon sheekaysan marka wuxuu yidhi guriga inta galo horteed galaan wuxuu yidhi rootigii qalalaaya saliiddii aan ku afurayay qariyuu yidhi waa qariyey si aysan u arkin yidhi waxa aan meesha ku hayo kabacdi guri dariskeennahan ku ordo isiruu yidhi war bal ha lagu caawiyo tala dhacday gabar dhana laguu keenaye marka waxaan iru yidhi war tala war hee dhahaya saciid binu musayib asaa yeelo gabadhiisa ii guuriyo xaaladaas igu jirta qoladii waxay sameeyeen hooyadiisay warka gaarsiiyeen hooyadiis marka intaad soo timid ay waxay tiri ma taaba kartid gabadhan gabadhii kacaysato 3 bari soo hagaajinayso aroosinaysay ilaa waxay gabadhii u keento oo maxaa arku yiri maba uu aragba ila hore
waxa weeye dumarka tan ugu quruxda badan oo ugu cilmi badan oo qur-aanka ilaahay xifdisan oo maaragtay shareecada islaamka taqaana. marka gabdhaha wan wanaagsan waa kuwaas. gabdhaha waalidka fiican dhaleen waa kuwaas. gabdhaha naftooda ku kalsoon waa kuwaas. ma ahan gabdhaha shuruudda iyo waxyaalaha aan loo baahnayn ku xiraya. ma ahan waalidka ku xiraya gabdhahoodii hanti sidii ilmahoodii inay ka ganacsanayaan noqonaya ma ahan. marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qoysaska la isu aroosinayo isu barakeeyo, awlaad khayr qaba uu siiyo, ahludiin uu ka dhigo, maaragtay khilaafaad uu ka ilaaliyo, annagana uu diinka nagu anfaco, kuwii rasuulkii raaca calayhi salaatu wasalaam inuu naga dhigo. intaas ayaa muxaadarada kusoo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.